ku soo bir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum dhammaan akhyaarta sharafta leh ku soo dhawaada kanaalka sahanka dunida. Maanta waxaan ka degi doonaa dalka Mali halkaasoo uu ku dhashay Boqor Muuse 1280kii. Haddaba intaana gudagalin barnaamijkeena fadlan subscribe saar kanaalka gambaleelkana taabo si ay muuqaaladeena kuu soo gaaraan. haddii uu ku anfacana muuqaalkani fadlan like garee. Asalkiisuna wuxuu ka soo jeedaa Kingi Sandiata Keita. Muuse waxa awoow u ahaa Abubakar oo la dhashay Kingi Sandiata Keita sida uu sheegayo Ibn Khaldun tixraaciisa. Muuse wuxuu lahaa dhowr magac oo isaga lagu yaqaanay sida Kango Muuse, Mansa Muuse iyo kuwa kale, laakiin magac ugu caansan ee lagu yaqiinay wuxuu ahaa Mansa Muuse. Mansa waxaa loola jeedaa boqor, wuxuuna ahaa boqorkii 10aad ee boqortooyada Mali intii u dhaxaysay 1312 ilaa 1337. markii uu carshigii fuulay waxay boqortooyadu ka koobneed Ghana iyo Mali, waxayna ku jirtay xilli barwaaqo badan. inkasta oo aan la helin qoraal ku saabsan Mansa Muuse iyo taariikhda Mali, badanka macluumaadka isaga waxaa ka soo gudbiyay Ibn Khaldun, Ibn Battuta iyo Al-Makhrazi. Mansa Muuse wuxuu xukuumadda boqortinimada ku qabtay kadib caado ka jirtay boqortooyada Mali in boqorka uu si toos ah u magacaabo dhaxal sugaha ka hor inta uusan aadin xajka ama uusan safrin. sidaas daraaddeed boqorka Mali Abubakarkii labaad ayaa u magacaabay Muuse inuu noqdo bedelkiisa oo uu safar ugu baxay badweynta Atlantic. waxaa la ogaa in uu boqorku jecel yahay safar iyo sahminta, sidaas daraaddeed wuxuu u safray dalxiis oo uu ku aado badweynta Atlantic isagoo aaminsanaa inuu heli doono meesha uu ku dhamaado dhulka. laakiin safarkaasi weligiisa kama uusan soo laaban. sidaasuu boqortooyadu ku qabtay Mansa Muuse ama boqorka uu ku noqday. Muuse wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo aqli badan oo aad u awood badan, wuxuuna awood u yeeshay inuu xiriir la sameeyo dhammaan boqortooyooyinkii kale. wuxuuna awood u yeeshay inuu boqortooyada Mali ka dhigo mid ku nool nolol dahabi ah, isagoo furay suuqyo, ganacsiyo iyo magaalooyin, xitaa masjido ayuu dhisay ilaa ay ka noqdeen Mali mid ka mid ah wadamada ugu qanisan Afrika. Mali waxay noqotay dahab taajirnimadeeda darteedna Mansa Muuse wuxuu ku noqday ninka ugu taajirsan taariikhda. safarkii Mansa Muuse ee Makka si uu u soo guto waajibaadka xajka, maadaama Mali ay tahay dowlad muslim ah, safarkaasi wuxuu ahaa safaradii ugu caansanaa taariikhda, waxayna sii kordhisay sumcadda Mansa Muuse oo ah ninka ugu taajirsan taariikhda. safarkiisa Makka ee 1324 isaga iyo intii la socotay ila wareejo badan waxa ay sheegeen in ay tiradoodu u dhaxaysay 600,000 oo qof ah oona ay ku jiraan 12,000 oo adooma ah. safarkiisii Qaahira waxaa la soo wariyaa Mansa in uu burburiyay dhaqaale badan maadaama uu dahab u hibeynayay qof kasta oo uu ku arko jidka ama uu ku maro. sidaas daraaddeed dahabka wuxuu hoos u dhacay 10 sano. waxaan rajaynayaa in uu muuqaalkani ku caawiyay. haddii uu ku anfacay la wadaag oo sii gaarsii asxaabtaada kale. haddii aadan horay subscribe u saarinna kanaalka hadda subscribe saar si aad muuqaaladeena dambe ula socoto.